السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن أو وناكسن كسو دو فيديو جين مانتا إن شاء الله waxaa kula wadaagi doonaa 10 ka shay ee aad iyo aad muhiim inooga inaan ka ogaano marka isticmaalina Google Chrome. dabcan dhamaanteen internet ku isticmaalna waxaan ka simanahay in aan isticmaalno mid kamid ah web browser-yada ha ahaado Google Chrome, Safari, Firefox, Opera iyo kuwa kale aad iyo aad u fara badan. laakiin insha Allah maanta videogan waxaa diirad ku saari doonaa sida ugu fiican ama 10 shay oo aad iyo aad muhiim inooga inaan ka ogaano Google Chrome. haddii aad ku cusub tahay kanaalkan fadlan soo dhawow. magacaygu waa Cali Maxamed Ismaaciil Baashi. waxaa jeclaan lahayn inaad nagu taageertaan subscribe, like iyo share. runtii dhinaciina waa free. anakan waxay noo tahay runtii dhiirgelin si aan soo diyaarino fiidiyoyaal kale aad iyo aad u fiican. ka hor intaan guda galin 10 ka xeer oo muhiimsan waxaa ogsoonataa maanta waxaa isticmaalaya Google Chrome oo Mac ah. haddii aad isticmaalaysid Google Chrome oo Windows inta badan way ka sameeyeen. haddii ay jiraan wax farqi ama waxyaabo ay kula gedsan yihiin waa kula wadaagi doonaa insha Allah. okay, qodobka ugu horeeya waa grouping. waxaa ogsoonahay marka isticmaalaysid Google Chrome qaybta u sareysa waxaa arkaysaa tabs. tabyaal kala duwan ayaa qaybta kore kaaga soo muuqanaya. haddii aad rabto tab cusub inaad furto waxaa furaysaa calaamadaas pluska. haddii aad rabto inaad iska xirto waxaa ka xiri kartaa calaamadaas x-ta. okay, hadda waxaa ujeedaa kanaalo badan YouTube iyo website-keena iyo meelo badan ayaa inoo furan. waxaa isku day doonaa haddii ay jiraan taabyaal aad iyo aad muhiim ku ah oo aad iyo aad u isticmaasho waxaa samayn kartaa group ayaa ka dhigi kartaa kuwa isku mid ama kuwa kugu isticmaal badan markaas. waxaa isku day doonaa tusaale ahaan labadan website oo aan aad u isticmaalo ayaa waxaa isku day doonaa inaan group ka dhigo. okay, si aad group uga dhigo midkaa dooratay ilaa midka kale aad rabto shift ayaa qabanaysaa kadib waa taabanaysaa. labadaas kanaal way dooran yihiin ama highlight ayaa la saaray. kadib farta midig ayaa klik ku siinaya. waxaa leeyahay markaas add tab to new group. new group markaa ku daray magaca rabta ayuu bixin kartaa. color ayaa siin karnaa. my web ayaa dhihi karaa ama waxaa rabtaa dhihi kartaa. kadib calaamad color ayaa rabtaa siin kartaa markaas. okay, u fiirso calaamadaas ayaa la saaray. haddii aad kanaal kala tago website-keen kabar markaa tago u fiirso xariiqintaas cad ama xariiqintaas buluug ayaa la hoos dhigay kanaalada groupka isku ah. haddii aad rabo buttonkaasna waa taaban karaa way xirmayaan qaanad ay noqonaysaa. haddii aad taabto way ii furmayaan. okay, sidaas ayaa groupka loo sameeyaa. haddii aad rabto tab kale inaad kusoo darto groupka waxaa awoodaa labo qaab baa ugu soo dari kartaa. klik intaa ku siiso ayaa dhexdeeda geynaysaa meesha rabto. okay, markaa geyso saddexda way ku darsameen. midka la daro inaad kusoo daro waa soo jiidaa waa ku dhex daraya. okay, midka u dambeeya haddii aad rabo inaad kusoo daro asigana add to group ayaa dhihi karaa. new group ama my web. new group waa samayn karaa ama tabki maaragtay groupkii hore waa ku dari karaa my web. okay, kulli hadda waxay ku wada jiraan tabka ugu horeeya oo my web. haddaa klik ku siiyo kulli way xirmayaan. tilaabadan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay dadka badanaa taabyada aad iyo aad u fara badan isticmaala. waxay samayn karaan in ay group u xiraan. hadda u fiirso laba tab kale ayaa furay. haddii aad ku laabto groupkii my web kulli way isu furmeen. okay, haddii aad rabo inaan ka saaro waxaa sameynaya oo keliya waa qabanaya waa ka jiidaya. click waa jiidaysa banaanka ay ugu bixinaysaa. ama waxaa samayn kartaa right click ayaa ku siinaysaa remove from group ayaa dhahaysaa. groupka sidaas ugu bax markaas. taasi waa qodobka koowaad oo sida group loogu daro. okay, haddii aad rabto groupka dhan waa saari kartaa. group markaa tagto right click ayaa ku siinaysaa ungroup ayaa dhahaysaa. kulli groupka ka wada baxaya markaas. kaas wuxuu ahaa qodobkeena koowaad oo ah grouping. taabyadoo dhan markaa group ku daraysid wixii isku shaqo qabanaya markaas ama wixii isku muhiimad ku ah. haddii aad rabaan YouTube kanaalo badan hadaa leedahay ama website badan la socoto ama iskuulka ahaado isku meel ayaa ku xareysan kartaa markaas. okay, qodobka labaad ee muhiimka inoo ah waa moving. sida loo dhaqaajiyo taabyada kala duwan. waxaa ujeednaa taabyo badan ayaa kor inoo jooga. haddii aad rabo inaad dhaqaajiyo taabkan click ayaa ku siinaya left click kadib meesha rabo ayaa geenaya. okay, left click meesha rabo ayaa geenaya. haddii aad rabo laba tab waxaa samayn karaa taabka rabo iyo taabka kale shift ay qabanaya ilaa taabka rabo ayaa geenaya. click markaa ku siiyo labadaas tab way dooran yihiin kadib labadooda waa wada dhaqaajin karaa. okay, haddii aad saddex rabo inaad isku qabto waxaa samaynaya kan u horeeya ilaa kan saddexaad ayaa taabanaysaa adigoo markaas shiftiga ahaa. kan koowaad ayaa dooranaysaa shift ayaa taabanaysaa waa qabanaysaa kadib kan saddexaad ama ilaa meesha rabto markaa gaarto click ayaa ku siinaysaa kadib saddexdooda waa isla dhaqaajin kartaa.
okay tilaabada saddexaad ee aad iyo aad muhiimka ah waa pin haddii aad rabto website-yada qaar ama taabyada qaar ay muhiim ku yihiin waxaad samayn kartaa farta midig ayaa klik ku siinaysaa kadib pin ayaa taabanaysaa meesha ayuu kugu keedsamaya mid kale haddii aad rabto waa ku dhufanaysaa asigana pin ayaa taabanaysaa labadaas meesha ay ku joogaan badhama ayay noqdeen markaa midkaa rabo klik ayaa ku siinaya wuu ii furmaya okay haddii aan rabo laba kale haddii aan rabo inaa labada pin ka dhigo waa wada calaameynaya anigoo markaas shifti haya kadib pin ayaa taabanaya fiirso pin ayay wada galeen labadooda okay haddii aan rabo kulligood inaan ka bixiyo kan u horeeya ilaa kan ugu dambeeya markaad doorto anigoo markaas shifti haya waxaa taabanaya unpin kulli pinkoo ka baxay okay qodobka afaraad wuxuu ku saabsan yahay sida codadka loo maamulo ama sound marar qaarkood waxaa laga yaabaa website-yada qaar soo booqato in codad dhaadheer iska daarmaan oo aad ku wareerto taabku ka daaran yahay intee ka daaran yahay waxaan videogan codkan dheer oo waqti ay kugu qaadato inaad damiso codkaas Google Chrome wuxuu kuu sameeyey badhan u gooni ah oo qaybtaas sare midig ayaa ka helaysaa markaa badhankaas taabato waxaa arkaysaa taabka ay wax ka daaran yihiin iyo wax daaran iyo waa ka joojin kartaa meesha haddii aad rabto stop waa dhigi kartaa ama taabka ayaa toos u aadaysaa oo videoga ayaa joojinaysa markaas ama waa ka daari kartaa sidoo kale waxaa awood u leedahay inaad meesha ka joojiso inaad mootiso inaad dib u soo celiso videoga ama video ku xiga aado xitaa waxaa awood u leedahay inaad picture in picture hoos inaad dhigato videogaada oo waxyaabo kale maaragtay website kale aad iska sii gargasho markaas okay si kale aad u joojin karta way jirtaa waxaad tegaysaa taabka farta midig ayaa klik ku siinaysaa kadib waxaad taabanaysaa mute site website-kan oo dhan wax ku jiro haddii ahaan lahaa videoyaal kala duwan ama codad kala duwan hal mar ayuu istaajinaya mute ayaa taabanaya okay hadda codkuu istaagay mana maqli doontid maaragtay mar kale okay haddii aad rabto inaad ka furto mute-ka waxaad tegaysaa meeshii farta midig ayaa ku dhufanaysaa unmute site sidaasna waa u furaysaa markaas qodobka shanaad ee aad iyo aad muhiimka noogu ah waa bookmarking iyo reading list waxaa laga yaabaa marar qaar inay kusoo maraan website aad iyo aad muhiim u ah oo aad ka baqaysa inaa ilowdo waxaa samayn kartaa laba shay waa samayn kartaa kow calaamadaas xidigta ayaa ku dhufanaysaa markaa ku dhufato waxaa taaban kartaa add to bookmark markaa ku darto wuu kuu save gareysmaya linkigaas waxaa laga yaabaa maalmo kadib inaad kusoo laabato oo meesha aad ka furto okay haddii aad rabto waxaa kale ku dari kartaa reading list haddii aad akhrinaysid post ama waxyaabo kala duwan oo waxyaabo journaal oo internetka daa wax ka akhrinaysid reading list gadaal waa ka akhrin kartaa waa usoo laaban kartaa markaas okay hadda waxaa rabaa website-kan alios inaa ku darsado bookmark ayaa xidigta ayaa taabanaya bookmark markaa ku darsado magaca website-ka waa kobci xirfadda folder haddii aad haysato foldero kala duwan waxaa laga yaabaa bookmarkyada naftigooda waxaa u samayn kartaa foldero kala duwan inaad kusii dheeraan ma rabno haddii aad folder cusub rabto waxaad tegeysaa more ayaa tegeysaa more markaad tagto new folder ayaa samayn kartaa new folder waxaa bixinaysaa news haddii uu war yahay haddii uu yahay macluumaad waxyaabahu wuxuu yahay kasta ayaa meeshaas qoraysaa save ayaa taabanaysaa folder ayaa samaysay kabacdi website-kan hadda wuxuu galay news folder ayaa sameeyey si aa u helo maaragtay news folderka waxaa arkaya qaybtan sare ayaa lasoo saaray news folder markaa furo waxaa ku jira kobci xirfadda okay website kale ayaa tagaya haddii aan rabo inaad kula daro bookmarkii hore waxaa tagaya xidigta ayaa tagaya add to bookmark way weydiinaya intee ku daraysaa folderyaal kala duwan ee meeshaas ku jiro news haddaad taabto done fiirso waa liikeedii oo wuxuu igu jiraa meeshaas newska haddii aan rabo newskaas magaca waa ka bedeli karaa oo waxaa taabanaya rename waxaa taga markaas productive ayaa qoraya save meeshaas ayaa maaragta magacii waa ka bedel markaas okay haddii aan rabin marka bookmarkigan oo waqtigiisa u dhamaaday haddii waqti ku xirnaa farta midig ayaa ku dhufanaya delete ayaa taabanaya delete marar qaarkood haddii kusoo maraan qoraallo muhiim ku ah oo rabto inaad keedsato waxaad samayn kartaa qoraalkii markaa tagto kadib ama page-ku yahay markaa tagto waxaad tegeysaa calaamad xidigta ayaa ku dhufanaysaa kadib waxaad taabanaysaa add to reading list ayaa ku daraysaa reading listna qaybtaas ayuu ku yaalaa reading list markaa furto waxyaabo kala duwan ayaa meesha inoogu jiro oo aan markaas hadhow usoo laaban karo okay hadda mid kale ayaa igu jiray oo office 360 markaa taabto office 360 ayuu geynaya website-ka haddii aad geliyey qoraalkii u dambeeyey haddaad taabto page kale ayuu ifuraya oo taab cusub okay haddii aan rabo reading list inaan wax ka saaro dhinacaas bidixda ayaa klik ku siinaya calaamadaas delete okay saasna waa ugu saari kartaa waana kusoo darsan kartaa kaasna wuxuu ahaa
qodobka shanaad oo aad iyo aad muhiim u ah. Okay, qodobka lixaad waa cast. Cast wax kale ma ahan, waa haddii aad rabto mobilkaaga ama computerkaaga video ku jiro in aad la wadaagto oo aad kasoo daarto TV kale ama computer kale, waxaad tegaysaa oo kaliya saddexdaas dhibcood ee dul saaran dhinaca midig qaybta sare, ellipsis ayaa la saddexdaas dhibcood. Markaa furto waxaad tegaysaa cast. Cast markaa saas u taabato wuxuu raadinayaa deviceyaal ama ha ahaado TV ama computer kale ayuu raadinayaa haddii ay leeyihiin maaragtay Chromecast haddii ay haysato ama ay ku dhex dhisan yihiin. TV-yada qaar way ku imaadaan, TV-yada qaarna waxaa loo soo gataa Chromecast. Markuu soo qabto kadib waa ku xiriirinaysaa, kadib videoga rabta ayaa taabanaysaa oo meesha ayuu ka daarmaya. Tilaabo toddobaad ee aad iyo aad muhiim ah wuxuu ku saabsan tahay sida isaga gudbi karno taabyada kala duwan. Google Chrome waxay u sameeyeen shortcut oo waxaad taabanaysaa command iyo taabka aad rabto nambarkiisa ayaa taabanaysaa. Hadda u fiirso, koob xirfadda wuxuu ku jiraa taabka koowaad, YouTube-ka Ali Esse wuxuu ku jiraa taabka labaad. Haddii aad rabo inaad taabka labaad tago waxaad taabanaa command iyo 2. haddii aad isticmaalayso Windows waxaad taaban kartaa control. Okay, anada command ayaa taabanaya, kadib number 2 ayaa taabanaya, command 2. markaad taabto YouTube ayuu geey command 1. haddii rabo Google inaad tago waa 1 2 3 4 5. Google wuxuu ku jira taabka shanaad, waxaad taabanaa command 5. waa shortcut waqti badan u baahan inaad ku isticmaashid, sidaasna waxaa ugu gudbi kartaa ama isaga tilaabi kartaa taabyo aad iyo aad u far badan. qodobka sideedaad oo aad iyo aad muhiim ah wuxuu ku saabsan yahay sida loo ogaado passwordada qaar oo aad u isticmaasho website kala duwan in lagaa xaday ama lagaa jabsaday. Okay, si aan ogaan waxaan tagaynaa saddexdaas dhibcood ama ellipsis ayaa furaynaa. Markaa furno kadib waxaan taabanaynaa settings. Markaa tagno kadib waxaan tagaynaa safety check. kadib waxaan taabanaynaa check now. caafimaadka passwordada ayaa la fiirinayaa. haddii ay jiraan websiteyo soo booqatay oo passwordada laga xaday websitekaas, ama passwordka haddii qofka la siisay oo computerkiisa oo ku isticmaalay oo meeshaas computerka qofka kale saaxiibka la jabsaday, xitaa waa lagu sheegaya. marka hadda waxaa lii soo sheegay 11 weak passwords. passwordada qaar waxay kala yihiin kuwo jilcan iyo kuwo adag. 11 password oo jilcan ayaa lasoo helay. haddii rabo waa furi karaa. markaa furo passwordada waa bedeli karaa oo waa adkeyn karaa. marka adkay kadib relaunch ayaa taabanaya. haddii aad rabto waxyaabo password ku saabsan videoyaal kale ayaa ka sameynaya, qaybta sare ayaa soo dhigi doona insha Allah sida passwordka loo adkeeyo oo aan lagaaga jabsan. markaas relaunch markaa taabano wuxuu noo sheegaa in passwordadii ay wax iska bedeleen. Okay, kaasna wuxuu ahaa qodobka 8aad oo sida loo ogaado caafimaadka passwordada. Okay, qodobka 9aad wuxuu ku saabsan yahay history ama website-yada qaar aad soo booqatay haddii aad rabin in laga arko. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaad banaanka tagto, meel cafeteria computer ka soo gasho, ama xaafad deriska inaad tagtaa laga yaabaa oo computerkooda isticmaasho, oo aadan rabin in la arko website-yada qaar aad soo booqatay ee sir ku yihiin markaas. Okay, waxaad tagaysaa si aad u tirtirno historygeena ama website-yada soo booqanay. waxaad tagaysaa saddexdaas dhibcood aad taabanaysaa, kadib history aad taabanaysaa. markaa taabad kadib history waxaa loo soo gaabiyey command y. waxaa laga yaabaa in adigana Windowskana waa options iyo ayaa taabanaysaa shortcutka. markaa furto waxaa arkaysaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa gasho dhan ayaa meeshaan kasoo muuqanaya. haddii aad rabto hal waa u dooran kartaa. markaa doorto kadib waxaad taabanaysaa delete, waa tirtiri kartaa. ama waxaa ka furi kartaa badhankaas remove from history. historyga sidaas wuu ugu baxay markaas oo qofku soo dabagalaya ku ogaanaya malaha. Okay, taasna ammaanka uu ku sugan yahay oo wixii maaragtay aad booqato dhan meesha way ka baxayaan. si kale oo kasii fiican way jirtaa oo waxaad tegi kartaa clear browser data. wax kasta oo computerkan ku saabsan oo waqtiyada ugu dambeeyay dhan meeshaas ayaa ka tirtiri kartaa. click ayaa siinaysaa, kadib waxaa lagu weydiinayaa ilaa goorma ayaa rabtaa inaad tirtirto. 24 saac ugu dambeysay, 7 maalin ugu dambeysay, all time. haddaa rabto computerku waxaa lasoo isticmaal Google Chromekan oo dhan waa tirtiri kartaa ilaa bilowga lasoo dejiyey ilaa iyo maanta. Okay, ama last hour ayaa taaban kartaa, kadib clear data ayaa dhehaysaa. sidaasna waxaa ku tirtirmay taariikhdii ama history oo kaa keediyay Google Chromes awoodaan dadka qaarkood inay arkaan waxaa isticmaashay ama waxaa soo gashay ama website-yada qaar aad soo booqatay. Okay, kaas wuxuu ahaa qodobka 9aad. qodobka ugu dambeeyay ee videogan maanta kusoo qaadan wuxuu yahay sida loo tirtiro download. waxyaabaha soo dhaadhacsato dhan meesha ku aruuraan sida asaga tirtiri karto. waxaana tagi kartaa isla meeshii oo kale historyga ayay u dhowdahay. waxaad tagaysaa ellipsis. markaa furto downloads ayaa tagaysaa. downloads markaa tagto waxaa lagu keenayaa pagekan marka lagu keeno waxaa awood u leedahay in aad hal u tirto
ama waxaa samayn kartaa saddexdaas dhibac ayaa furaysaa clear all kulli waa tirtiri kartaa hal mar ama folderka oo websitekaada oo downloadka ay kugu jiraan ayaa furi kartaa kadibna meeshaas waa ka tirtiri kartaa inkastoo meeshan ay fiican tahay clear all in la taabto haddii aad rabin in laga arko laakiin computerka haddii adi qaas ku yahay way fiican tahay marar qaarkood in downloading history inaa haysato waxaa laga yaabaa waxyaaba muhiim ku ah fayl kale muhiim ah in ay maaragta meesha kugu jiraan oo aa kasoo baxsan karta markaas okay waxaa soo sheegnay 10 tilaabo ee ugu muhiimsan marka la isticmaala Google Chrome haddii aad rabto halka oo bonus ay kugu daraya mar kasta aad furto tab cusub haddii aad rabto page karta ayaa ku xiran kartaa Google ahaado Facebook ama website badan oo tabyo badan ayaa ku xiran kartaa si aan ugu xirno waxaa tegaynaa saddexdaas dhibac kadib waxaa tegaynaa setting markaa tagno on startup ayaa tegaysaa kan u horeeya waa new tab page sidoo hadda inuu taagan yahay haddii aad rabo continue where you left meesha ugu tagtay kasii wad oo websiteyada ii furna oo dhan ayuu markaas kasoo qaadaya ama waxaa taaban karaa open a specific pageyada markaas aad rabto ayaa ka dhigin kartaa okay haddii aad rabto use current kuwa hadda taagan inooga dhig markasta xiro haddii aad ka xiro Google Chrome hadda aad soo furo websiteyadan dhan ii furan dib ay ugu soo furmayaan haddii aan rabin ama mid aan rabin hadduu ku jiro click ayaa ku siinaya remove ayaa taabanaya okay intaasna waxaa ku joojin doonaa videogeena maanta oo aan kusoo qaadanay 10 ka xeer ugu muhiimsan ee isticmaalka Google Chrome iyo hal kale oo bonus ah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysteen haddii ay jiraan wax talo iyo su'aal soo jeedin markasta iloobin inaad comment hoos inoogu soo qori kartaan hana iloobin inaad subscribe iyo like iyo share aad sameysaan runtii waxay noo tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarino video yaal kale oo aad iyo aad u fiican waana mahadsantihiin waa anigoo Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo idin leh waa inoo video kale insha Allah